وهو صاحب الإنفاق منفق خروج وحيلان صدق إن شاء الله بحيا اللي بلاد بالله بحيا يسوي كل خروج بوه وديه جري والإلهينا إيجا دينتينا إيجا dadkiina eega dalkiina eega waxyaaluhu aad ugu duceyn jiray waxa kamid ah inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala Bayt al-Maqdis gacanta muslimiinta ku soo celiyo taariikhda culimada daweelsan loo toolin tagtadooda laga qorin lagu dhigin tawaad saxa waxa guri tog weyno sooyaal ku taxayay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ونكسرنا بام بداوديال كسر هذا برنامج كني عويس كعلماء وكل كان أينو بكور قلينا تاريخ دي نلاشي وحقبت كي قار كم ده هل دور كعلماء الصومالي ده كلن كان أيه وحين نكون فلنقين دورنا كنا قاعدين دورنا كم أيها شيخ إسماعيل محمود عقال أمير كي جماعة تبليغة كدب تاريخ نولات كشيخ إسماعيل وحبرنامج كعويس كعلماء وفرد دونا بالال كم ده تاريخ دي نلاشي دعودي iyo waxqabadkii Sheikh Ismaaciil Maxamuud Cigaal ka hor saynteynaan gelin kuma ayuu ahaa Sheikh Ismaaciil Maxamuud Cigaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala hu naxariistay Sheikh Ismaaciil Maxamuud Cigaal ayaa sanadkii 1943 waxa uu ku dhashay tuulada Huluul oo ka tirsan gobolka Sanaag markii uu sheekhu jiray 3 sano ayaa waxa geeriyooday aabihii hooyadii ayaa isaga iyo qoyskii kaleba u soo rartay magaalada Berbera waxbarashadiisii asaasiga ahaydna waxa uu sheekhu ku qaatay magaalooyinka Berbera iyo Sheekh intaasi kadib ayaa sheekhu waxa uu safray dalka Yemen waxaana uu shaqo ka bilaabay shirkad isgaarsiineed oo Ingiriisku lahaa oo ku taalay dalkaasi Yemen kadib ayaa sheekhu waxa uu uga sii socdaalay dalka Saudi Arabia kadibna magaalada Hargeysa ayuu dib ugu soo noqday oo uu ka bilaabay ganacsi isagoo oo dalkii Sacuudiga uu ku noolaana marar badan ku noqon jiray sanadkii 1975 ayaa Sheikh Ismaaciil waxa uu kula kulmay dalka Saudi Arabia jamaacad tabliiqa oo uu hogaaminayay Sheikh Saciid Ahmed Khan sheekha ayaana ku tashkiiliyay inuu baxo halkaasi ayaanu uga sii socdaalay dalka Pakistan isagoo ku safray gaari waxaanu sii maray dalalka Iraq Iran kadibna Pakistan ayuu u gudbay sanadkaasi ayaa waxa uu sheekhu sidoo kale maray dalalka Pakistan Bangladesh iyo India muddo sanad ah ayaanu sheekhu halkaasi soo joogay Sheikh Ismaaciil ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay dalka halkaas oo uu ka bilaabay dacwadda tabliiqa sanadkii 1976 isagoo dhibaatooyin aad u badan kala kulmay dacwadda oo ay ka mid ahaayeen jeel aflagaado iyo dhaawac loo geystay intaba Sheikh Ismaaciil Maxamuud Cigaal amiirkii jamaacada tabliiqa ayaa laga soo bilaabo sanadkii 1975 ilaa maalintii uu ka geeriyoonayay waxa uu ka shaqeynayay dacwadda iyo dadaalkeeda safarro badan ayaanu galay waxa uu tagay wadamada Carabta badankooda sida Sacuudiga Kuwait Iraq Urdun Qatar iyo Yemen sidoo kale waxa uu sheekhu khuruuj ku baxay meelo badan oo ay ka mid yihiin dalalka Yurub sidoo kale waxa uu sheekhu safarro ku tagay dalka Mareykanka sidaasi si lamid ah ayaa Sheikh Ismaaciil Maxamuud waxa uu safarro ku maray wadamada Asia badi sida India Bangladesh Sri Lanka Afghanistan iyo meelo lamid ah sidoo kale waxa uu sheekhu safaradaasi ku maray geeska Afrika bariga Afrika iyo guud ahaan Afrika sida Djibouti Ethiopia Sudan Kenya Uganda Tanzania iyo South Africa sheekha ayaa dhamaadkii noloshiisa waxa uu ahaa amiirkii guud ee jamaacada tabliiqa ee dhulka Soomaalida iyo geeska Afrika dhamaanba sheekhu waxa uu jeclaa in bulshadiisu ay wax barato sidaas awgeed waxa uu dhisay madaaris macaahid iyo jaamacado badan guud ahaan dhulka Soomaalida ayaa waxa uu sheekhu ka dhisay maxado iyo madaaris sidoo kale waxa uu dhisay oo dadaalkiisa ku soo baxay 3 jaamacadood oo la isku yiraahdo Shamsul Ulum oo ku kala yaala magaalooyinka Hargeysa Muqdisho iyo Boosaaso sanad walbana waxa jaamacadahaasi ka soo baxay rag culimo iyo ducaad ah oo ka shaqeeya dacwadda iyo maraakista Sheikh Ismaaciil ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay xanuun u jiifay magaalada Muqdisho halkaasi oo markii dambe loo qaaday dalka Saudi Arabia Ilaahay subhanahu wa ta'ala hu naxariistay ugu dambeyn waxa uu Sheikh Ismaaciil ku geeriyooday ugu dambeyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala hu naxariistay Sheikh Ismaaciil waxa uu geeriyooday xanuun ku soo bilaabmay horaantii sanadkii 2022 isla dabayaaqadii sanadkaasi ayaanu sheekhu geeriyooday sheekha ayaa waxa uu ku geeriyooday magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia kadibna waxa salaadii janaasada lagaga tukaday xaramka barakaysan waxaana lagu aasay xabaalaha Mucalla ee magaalada Makka Sheikh Ismaaciil Allahu naxariisto waxaynu maaragtay insha Allah ta'ala u rajeynayna inuu jannatul firdaws inuu ilaahay maaragtay uu ku cazumo halka uu geeyo maanta
waxa xaramka agtiisa ku aasan yahay maaragtay yani fursadaan yar tahay inay cid hesha oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku galladaystay marka waxaan leenahay allah u naxariisto sheekha ilaa 74 ayaanu horta xidhiidh yeelanay waxaan ka mid ah jamaacadii ugu horreysay la baxday oo arabsiyaan u baxnay 3 cisho 3 ayaam magaalada qudheeda waan la yara baxbaxay qudheeda markii uu dacwadda keenayba wuxuu doonay calimataan buu halkii ugu horreeyay uu ka bilaabay ahayd marka jamaaca hagaagsan ma jirin laakiin jamaacada asaasiga waxay ka bilaabmi doontaa jamaaca weyn bay ka bilaab markii ugu horreeyay uu noqon doonaa laakiin marka jamaaca aduu da iska bilow ahaa calimataan oo marka gurigiisa u dhawaa gurigu geli jiray oo dad ayna farax joogme maaragtay halkaan waa gurigan shabeel halkaan dhiska shabeel ku yaal dhiskaasuu geli jiray sheekhu halkaas uu isaga isbeerbeer buu deelaan jiray berigi hore isbeerbeer loo marka baabishtiisu ahaa uu dacwadda u go'ay soo aad u wanaagsan oo dacwadda aad ugu wanaagsan waxaan jeedaa baabishtiisu aad u wanaagsan yahay buu dacwadda u dhaqaaqay Pakistan tagay India meelahaas oo dhan buu soo maray markuu soo noqday 74 dacwaddaas ayuu bilaabay marka sheekha anagu xidhiidhkay ugu horreeyay marka uu yimaado aniga iyo wadaad Xasan Madar Layla iyo Ciidid Layla oo xagga qurbaan ma ku qalay Axmed Xasan Madar soo geeriyooday Allahu naxariistay baanu la bilownay sheekha marka anigu sidii baanu asxaab ahayn 77 ma dalka ka dhoofay laakiin mar walba xidhiidh ayaanu sheekha lahayn 84 waanu xididnayba sheekh insha Allah taala oo maaragtay qaraabad maaragtay عائلية baana dhaxmartay ilaa imka alxamdulillah insha Allah taala qoysku ma kamid ah markan dambe sheekh Ismaaciil raxmatullaahi calayhi wuxuu ahaa shakhsiyad ilaahay aad u jecel dadkan ilaahay jeclaysiiyay subxaanahu wa tacaala aniga markii sheekha iigu horreysay kolley macrifo waan u sii yar lahaa laakiin macrifada anadu meeshay xoog uga sii bilaabatay waxay 99kii masjid al-hidaaya masaajidka waxra cadde muqdisho ku yaala markaska dacwada kolley sheekha waa la soo farfiiqay sheekh Saciid oo markaa kitaab ugu maranayay gurigiisa Allah u naxariisto asagana waqtigiisa oo dhan diinta ku dhameeyay maalkiisa asaguna oo mudan asagana kelmadiisa insha Allah waqtigeeda ba ay sheekha marka meel waxay la fadhiisteen masaajidka banaankiisa marka waxay inaan yar عربية iyo xogo ku yar sheekha lagu soo yarahay yiri marka ila fadhiistay oo qaabkan dacwada u fahmay wax uu weydiiyay sheekhu marka waa la yaabi jiray baan kolkii hore tabliiq oo laakiin markaan kitaabada loo akhrinay marka aan ardada ahayn kitaab kamid ah waxa kamid ah bisidq wa tabliiq wal amaana waxyaalaha ambiyada ay lahaayeen inay kamid tahay runta iyo amaanada iyo gaarsiinta marka waxaan iri kitaabka waniya waaba kan sidanu ilaahay bisidq wa tabliiq soo kan tabliiq ku dhex jira ma adoo ayada quraan oo kalena waa yar sharxayo 99kii bay ahayd sheekh marka xilligaan isbaranay kadib wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan 4 bilood oo isagii sheekh Saciid Allah yarxamuhu inaan kaaraan idinku tashkiilna marka 44 masaajid baan la siiyay 4 shuhur baan marka muqdisho ku dhameynay alxamdulillah halkaas marka sheekha ay calaaqada iyadoo ka bilaabatay 99kii الله يرحمه شيخ إسماعيل يعني وقتي فربضن بان anagu xiriir lahayn laakiin suxbada gaarka ah hoose iyo wada safarka iyo wada socodka meelaha 24 sano 24 sano meelahaas aan wada soconay ama safar dacwadeed ama aan meel wada joogno ama magaratay marka sheekh Ismaaciil rahimahullahu ta'ala ilaahay ha u naxariisto raxmatan waasica ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto ilaahay jannooyinkiisina Allah ku casuumo ilaahay dambigiisana ha ka dhaafo xasanaadkiisina ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u sii badiyo kulleyn waa taariikh ilaa 30 sano intaan garanayo ku dhowdhow ee noqonaysa marka jilsad kooban laguma soo koobi karo طبعا رأيي قوم بدن وشيخ يقسي حقنا وافر بدناين لكن أول مرة أنا أرجنه وسجاشن يلا بدي تقريبا 1992 بين نقون كرتاه حنسي حسوسنا هي مسج جماعوين أول كلمة صدرت منهم كلمة ديك وهذه شيخ أفكيس كسب بحذو عهيد كم كنتم المساء هيدا عمر كانوا كسب نقولنا إلا ما هي يقول فوق
marka bilowgayga kolleyn saasuu ahaa kitaab carabi on qoraa jira ereyga ilaahay subxaana watacaala ma i waafajiyey waxaan ku dhaartay yani qofkaa qof la mida inaanu dacwadda igu soo marin dacwadda intaan dhex socday waan ku dhaartay ilahay inuu ii dhabeeyey waxaan qoray iminka malaha 2009 kitaabka ayaa daabacadiisu waan ka horreeyay 2008 ayuu soo baxay xadiiskii lahaa magarasa rasuulku lahaa qoloyin ilaahay u dhabeeyo dhaartooda waxaan ku dhaartaa inuu bini aadam cajiiba ayuu xaqiiqatan sheekhu dacwadda u go-ay cimrigiisii oo dhan siiyey ima khuruujka waxay dhahaan 3 ishaa la baxaya 6 bilood baa la baxaya isagu kulligii khuruuj buu ahaa waxaan odhan karaa haddii ay qolooyinkan imiga caalamka safaradii wax ka qoraa malaa bini aadam qof caalamka ka safar badna qaarad aanu istaagin yurub maraykan carab oo dhan magaalada runtii Asia iskaba daayay markay dhulka waxaan la yaabay bari baan aniga aadan oo dhakhtarka geeyay shaqadan aanu isu raacnay Malaysia dhakhtarka markii uu horeeyay tago ayaanu soo noqonay marka Yemen baanu maraynay shaqa Soomaali marashad marsi uu jooga niga safarada ajaayib Yemen uu joogay marka waxaan ka wadaa Soomaali waa shakhsi bari baan wanaag fariisan tuulayo waanu maraa dadka qaar baa shaashaduun laga daawada moogtii tuulayo waanu mari jiray markaas tuulo halkaas oo fogo hawdkaasaanu marin markaas nin waxaan reer miyiga ayaa wallahi wali kalmayso wuxuu yiri waranu sheekh Ismaaciil ma naqaanay yani hatta reer miyiga maxay yeelay isagu ma ha shaashad dadka shaashada daawanay hatta way yaqaanaan meel walba lug buu gutay Soomaali meel aanu istaagin tuulo aanu istaagin dhulka Soomaalida oo dhan isku wada daray Djibouti ka bilow ilaa Kismaayo Kenya kililka sidoo dhayahay meel aanu istaagin magaalada Sarwanta والله إلهي وحو إلهي سبحانه وتعالى إنا نحن نحل الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم شيخ إسماعيل أرطى محسن بوها سيدا وشيخ الشيخيبة إلهينا سبحانه وتعالى وحيالها أقوى وين شيخ مركي هذا يعني أنسلانا هي إلهي سيداب وأبو إذين سيندونا سبحانه وتعالى إلهي وحبكم هين وحول ببحياه مزاج الأمة أيها لها ومد مزاج كذا أيها لها يعني الشيخ مزاجكم مدوا محي ونقنك بشرية عالم كنا ولا نوع دوني مع النقط عربي عجب مزاج كذا يولها قف خدوم مزاجك ولا هنا يعني واقف حكمة له واقف يعني بصيرة له واقف دقة له وحي وشيء هيو ونقفنا ونكدي ذينين أيها شيخ إسماعيل رحمة الله عليه ومثلا يعني وحكم إذا مالها بركوت شيخ وقرن هيا meesha asaga loo baahan yahay meesha asagu wuxuu uga baahan yahay shakhsiyad kala garan buu ahaa shakhsiyad wuxuu ahaa madaxda hadalka ku munaasabka ah u soo jeediyo oo dhan hayso ma jaamacad baa uga soo baxay markuu madaxda la hadlayo oo kale hadallihiisa waxaan ka xasuustaa wuxuu dhihi jiray walilaahayna eega diintiinana eega dadkiinana eega dalkiinana eega shalayna maada joogin berrina joogi maysid kursigan ilaahay ooga baq ayuu ku dhihi jiray hadduu fuqarada la hadlayo hadalkoodii hadduu culimada la hadlayo hadalkoodii hadday dadkan uu la hadlayo carabi yihiin carabta hadalkoodii hadday cajam yihiin cajamta hadalkoodii hadday dad afrikaan yihiin afrikaanka hadalkoodii yani mizaaj al-umma ayuu lahaayo dhaqanka waxaad moodaysay inuu qolo walba inuu ayaga ka tirsan yahay sidoo caadaadkoodii iyo dhaqankooda u yaqaan sheekhu ayaa ka mid ahayd waxyaalaha يعني شيخ رحمة الله عليه لو صح حسن هي شيخ إسماعيل وحاكمه ووحى أسلاه وكو قاري تضحية إخلاص يعني إنه مركو قفكو وحراء ما حضرك يصدق كاس ودن نول بشيخ وجعليه يعني ماشوا تجابا سبحان الله وحد مودا إن ضدك إلهي سبحانه وتعالى مقالة ذي وحنمر البسواح حسين شري من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار عبد الله بن عباس ويلي إنك هبينك سلاديسو أي بدأته مالنتي نور كيس أيا وجه كيس لقى دريم هيا مرك شنبو إلهي سين بديه شريو إن للحسنة نورا في القلب وبياضا في الوجه وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب العباد أو في قلوب الخلق مرك أنت هسا كم موقن هيسي ونين دتكو دن أي وذا جعلايان بوها أسونا دتكو دن جعل يعني وحيالها مركز صاحب ستو والشيخ إسماعيل أد كسو حسوا حكم إذا سلة الرحمك dadka qaraabadaha sheekhu sida uu xirinayo hadii qaraabo wuxuu ka dhigan hayo qof kasta oo muslimaha
iyo meelaha barkood markuu Soomaalida dadka afka Soomaalida ku hadla markuu ka baxsan yahay hadii la dhaho meesha shakhsi Soomaali ah baa ahaan jiray oo mesela waxa jiri jiray hada gobolkeenan Soomaaliland oo kale ciidamo laga qaaday Faransiiskii qaaday oo iska dhaqan bedelmayba meelaha la dhaho Madaqashkar oo kale South Africa oo kale dadkaas uu raadinaya markaas uu ka soo qoraya taariikhda markaas uu ku halkan isku xidhay يعني الشخصيات waxay صلة الرحم kiisu يعني Soomaalinimo iyo intii hatta meelaha barkood Carabnimo ayuu ahayo aad qaraabada u xiriiriyo ayuu ahaa sheekhu raxmatullaahi calayhi marka waxa weeye sifaad aad u cajaa'ib sheekhu waxaan ku leeyahay sifaadkiisa haddaan ka sheeg cibaada yani aan ugu malaynay bini aadam siduu u cibaadaysan jiray insha Allah taala xaj walba uu tagi jiray toban walo Ramadaan wuxuu joogaa xaramku ku ictikaafaya قيام الليل يسوي ده يسكبده إن شاء الله تعالى صوم كي مقالات صنان كي مقالات روانتي يعني سفاد حقيقة عادي وبدن أو خير بدن إنفاق وحيد صوق على شيخ مقالات روانتي عادي صخاء ماركتي عادي أيوة مارك جيس النمو وهذا يدي دعوة أنت الله حلاي هرجيس الله حلاي مقالات روانتي حمر الله حلاي والحرب إن بدن الله حلاي موت isagoo masaajidka wacdiyay midi lagu dhuftay oo maaragtay dhaawac weyn loo geystay ilaa beerka socday magaalada Rwanda hadana dacwadiisa aanay waxa soo dhamay ka hakinada ilaa maanta aniga maalinta hore ka sheekeynay bilaamin uu qabto in ka badan buu sheekh yani aad buu maaragtay runtii sheekh Ismaaciil raxmatullaahi cibaadadiisu habeenka nabiga way aka maalintiisuna maalinta nabiga way akay yani habeenkoo dhan sida nabiga loo yiri calayhi salaam قم الليل إلا قليلا لبدي قم يا النبي عليه الصلاة والسلام قم فأنذر يقوم الليل إلا قليلا لبدا أيضا بمالين تيسنا كم وقتي هبين كيسنا كم وقت مرك قف آذو عبادة بدن أو كوجا ولبا أدموديس وحد الشيخ كم مغل جرتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسمع في جوفي عزيز كعزيز المرجل كوح ولبا روح ونأجي فكرين يعني سوبر أروج يسوع يعني ومرك قارك الشيخ أسلاد هم وحبوقة قبنا هي عالمك هبي ما حتى وحيقول الشيخ الله يرحمه الشيخ إسماعيل وحيقول عبد الرحمن ولي جاي نفتيد أنت ندعو عيسى ويرتهي دعيتي صلنا عام بهاي ومبدو دعيني رحمة الله عليه حتى وحاجر دعين وأنا حفظ السياء وليه شري كل دعاء تضبط دعاء وقسي ويندنتو الشيخ هذا وقع العلم شري ويقم تاه اللهم عجل نصرك وفرجك علينا وعلى كافة المسلمين اللهم عجل نصر على الأعداء بعلم الكتاب وإظهار قدرتك ودعاء اللبادة اللهم حرر المسجد الأقصى وحواليه بعلم الكتاب وإظهار قدرتك اللهم كون لنا جماعة المسجد وجهد المسجد في كل مسجد وإخراج الجماعات في مشارقها ومغاربها ويقم تاه اللهم افتح أبواب الهداية لغير المسلمين وافتح باب توبة للمسلمين ويقم تهي يعني اللهم أرنا في هذه البلدة وسائر بلدان المسلمين عمارة الدين وعمارة المساجد وخراب دولة الكافرين والمنافقين ويقم تهي اللهم أقم علم الدعوة والجهاد وقمع أهل الكفر والعناد وانشر رحمتك على العباد اللهم خيب رجاء كل جبار عنيد ومعتد أثيم واللي بس لا سكر خيب رجاء كل جبار عنيد ومعتد أثيم خيب رجاء كل جبار عنيد ومعتد أثيم يعني صوت كيس وكلساس وسبيحة يساقو مركا قفها بين كينا نوليا maalintiina dacwo ku nooleeya ayuu ahaa وصفاتك النبي عليه الصلاة والسلام كان عبدا لله وكان داعيا إلى الله وكان رحمة للعالمين أيا توس أوجم وغد الشيخ يعني مدرك غاركود وحد كم مثالين هيساء هدان هذا وانتو صالحان أن كسوق هذا نن وحلا وحو ملك سنايو دن جوري هدو أهل تاي هدي مال تايبا جوري وكل حوجا وجوري جي دب قبصدي فرهينا لا حالدي سين نقنيسة حالدي يعني نوع عاصو كلو هايو dadko dhan buu la wada jeclaa sida hidaaya in dadku wada helaan naar uga badbaadaan ba sheekha yani aad buu taqshicir lacalaka ayadahaas aad soo xasan jirtay lacalaka baaqu nafsaka alla yakunu mu'miniin fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat taha ma anzalna alayka alquran litashqa ayadihi nabiga ilaahay uu kula hadlay alayhi salaam ba yani noloshiisa toos ugu turjumayo waxaad moodaa aad yani sheekhu inuu ayadaha saameeyay inay kamid ahaayeen sheekh Ismaaciil qulubtu marka ay rabto inay wax sheegto wax badan oo isagu ahaaba ku soo dhacaya oo anu maaragtay carabkuna aad u koobi karin waxa uu ahaa shakhsi geesinimo leh oo diinta u dhiidhiya
oo jecel diintu inay korayso waxa uu ahaa shakhsi infaaq leh wuxuu jeclaa qof miskiina ama in la dhergiyo ama meeshuu ku socday in la geeyo waxa laga yaabaa miskiinkaasi waxa uu sheegtay wax ka badan inuu siiyaba jeebku gacanta gelinaya wixii ilaahay mararka qaarkood waxyaalahan arkay waxa kamid ah mararka qaarkood waxa gacantiisa ku soo hagaagay uun waxay doontaba ahaatee inuu u dhiibayo miskiinka laftiisuna uu yaabayo uu leeyahay alaabtan lagu dhiibay maxay ahayd waa uu shakiyayaba meel badan baan ku arkay arrintaas oo lagu arkay saaxib infaaq buu ahaa mana jeclayn qof miskiin inuu dhibaatoodo nooc doonaba ha ahaado wuxuu jeclaa inuu dhergiyo wuxuu jeclaa inuu wax siiyo wuxuu jeclaa khasaa'istiisa gaarka waxa kamid ah ilaa imika waxa jira maadaama aanu anagu cilaaqaad hoosana lahayn saaxiibna aanu ahayn waxaa jiray dad odhan jiray warniyo ninka ka warhay ama uu lacag igu dhiibi jiray odhan jiray lacagta ninka u dir isagoo diidaya in la ogaadaba cidda soo dirtay dadka noocaas imika jooga inta hebel u dir inta waxa weeye ninka miskiinka ka warhay waxa waa saaxib al-infaaq munfiq buu ahaa bimacna al-kalima wuxuu ahaa nin cibaado badan mararka qaarkood marka la wada safro oo aan wada soconno dadka qaar baa waxay odhan jireen qolka uu isagu joogo ma seexanayno qol kale waayo isagu hadduu kacaya iyadoo raggu soo daalay oo safar dheer la galay oo ay arrintu adag tahay oo qof isdhaqaajinaya aanu jirin ayuu dhinaca dhigayaa waa taagan yahay marka cibaadadiisu aad bay maaragtay u badnayd xataa fi safari walxadar waxyaalaha la yaab kale ee xusuuda mudan waxaa ka mid ah ducadiisa aad u badnayd kaana saaxibu ducaa mararka qaarkood ducadiisu afraad buu carabka marin jiray ilaahu hebel hebel ilaahu hebel kaa kale ilaahu hebel kaa kale yani wuxuu jecel yahay in uu dadka qaar oo carabka mariyo oo magacooda xuso oo mar boqolo soo qaado ducadiisu caan bay u badnayd khaaskana marka dambe ku gabagabayn jiray waxyaaluhu aadka uga ducayn jiray waxaa ka mid ah inuu ilaahay subxaana watacaala bayt almaqdis gacanta muslimiinta ku soo celiyo labada xaran buu u ducayn jiray waddanka uu ducayn jiray waddanka madaxdu u ducayn jiray dadka tujaarta inuu ilaahay islaaxiyo ayuu u ducayn jiray qolo walba in nidaamkooda ay garato ku ducayn jiray marka wuxuu ahaa nin duco badan oo aad iyo aad ducadiisu u badan tahay ma garate wuxuu ahaa nin daakira haddana waa shaksiga keliyaate ee janis inuu lumiyo daqiiqad haddii aad arrin ku ballansanayd inaad ka habsaanto waxaa laga yaabaa 100 jeer inuu kusoo garaaco maalmo aanu ballansanayn waxaan garanaya guriga ugu yimi uu yidhi maxaa ku helay isagoo soo doonay yani ihtimaamka ku jirta wuxuu ahaa mid dadkuna ay u siman yihiin ninka madaxda dadkoo dhan anzilu naasa manaazilahum garanaya maca dalika ninka baalashlahana la sheekaysanaya ninka maaragtay madaxda la sheekaysanaya qof kasta oo uu isleeyahay yani waqti baad u haysaa inuu la hadlo oo la sheekaysto oo la fadhiisto ayuu jeclaa siduu u joogo baad arkaysaa isagoo markaad wada safarka la wada galo ama meel la wada joogo isagoo maqaaxi dhex fadhiya oo dadkii la hadlayo oo salaada kala hadlayo oo cibaadada kala hadlayo waxyaalaha uu aadka uga murugoyn jiray waxa ka mid ah baalkan balwadda oo dadka dee Soomaalidana ku badan waxaan jiray 80 jirkii 70 jirkii 40 jirkii 20 jirkii baa meel wada fadhiya ma garatay habeen baa isagoo aad u murugaysan buu ama ayuu iiba markaas wuxuu gurinayo bal waxaad aad uga ducaysaa dumarkan jaadka iibinaya inuu ilaahay risiq kale oo xalaal ah ugu bedelo haddii ragoodu nool yahayna ragoodu ay maaragtay wax siiyaan oo mas'uuliyadii qaadaan wuxuu ku ducayn jiray ilaahu dumarka guryahooda ku celi ilaahay oo ragana diinta iyo fahansiin ilaahay oo caruurtana madrasada quraanka iyo diinta fahansiin ducadiisu marka saddexdaas ayuu carabka barin jiray
marka wuxuu oran jiray boqol lagala bax ahayd boqolka dumar laga dhex bixi jiray aadka u qiimaha badnayd ma maanta halka fadhida oo waxaan waxba ahayn iibinaysa si kasta xaaladdu wax ku kalifto waxa dad bulshada dhex gala wuxuu ahaa nin wuxuu hayo ku xisaabtama oo haysto yani inuu qofka la damaaciyo ama ma ahayn zaahid buu ahaa waxaad fahmaysaa xadiiskii ahaa izhad fi dunya oo nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam izhad can dunya lama odhan maxaa la izhad fi dunya macnaha adoo wixii haye wey wixii adoo gacanta ku haya oo awood leh ayuu isagoo leeyahay mee waxaad degaysaan meelaha qaar markaan tagno hotelka 5 star ka deg oo markaas oran jiray maya anagu ma degayno markaas oran jiray sheekhu muu iska fasaxo waa badale maya waxaan degaynaa buu leeyahay halkayga masaajidka aan seexan waxyaalaha xusida mudan waxa kamid ah hadduu maanta yani qof iqtisaadi ka fikiraya ama dhaqaale adduunyo ka fikiraya uu yahay wax badan buu qaban lahaa tog lacaga hormaraysay maca dalika umuu maaragtay jeedin waxaanu jeclaa maca dalika isagu haddii meel la iskugu yimaado sifaadka la yaab kale ee aan ku arkay waxa kamid ah walow ninka ugu maalka badan ha joogo meesha haddii meel la iskugu yimaado wax la cuno haddaanu qofkaas isagu casuumada samayn safarna lagu jiro qaafiladaha iyo safarada dacwadada lagu jiro wuxuu doonayaa inuu isagu wax bixiyo ma ogola inaad wax bixiso ma ogola inuu qof kale oo meesha joogaa wax bixiyana ma ogola wuxuu rabaa anaa bixinayo taagan yahay waanu kaaga horeynaya waliba marka yani wuxuu ahaa qof qanaaco leh qof baahida isagu uu leeyahay aan cidna u sheegin buu waxaa laga yaabaa inaanu wax badan jeebkiisa aanay ku jirin maca dalikana uu faraxsan yahay uu leeyahay waxba igama maqna ama meelaan u socdaa ama meelaan maaragtay safar baan gelayaa safarka uu gelayo dee qofku markuu meel dheer gelayo wax laga yaabaa lacag fara badan iyo wax inuu sii qaato isaga wax laga yaabaa uu horta meesha ku gelayo inuu diyaarsado oo wuxuu ahaa nin ku xisaabtamaya ilaahay khasaa'intiisa haddii uu arrin dareemo ama muruga ku timaado ama xaalad ku timaado wuxuu isticmaali jiray salaad magarate xagga salaad uu carari jiray sheego maxaa jira waa marka waa dareemaysaa marka uu ku celinaya salaad kaasuu marka dab duca ku soo khatimaya magarate saaxiib duca yani xasuustiisu waxyaalaha la yaab kale waxay kamid ahayd ducada kamid ahayd waxa uu ahaa nin amrul muslimiin ay haddii dhibaato ku timaado muslimiinta dadkana wuxuu u sheegi jiray ducadaas gala oo dadka arrintaa ka duceeya yani waxaad damqaysaa xadiiskaasaad xasuusanaysaa mathalu lmu'miniin nebigu sala allahu alayh wasalam uu leeyahay mathalu lmu'miniina fii tawaadihim وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد أرنت فلسطين كسعوتا أيو كدعينيا مسلمين تلباتها هيسو كدعينيا حالة ذاتك مسلمين تمان تيكو جراب أيو كدعينيا ما قالت مركا أرنت ذاتك مسلمين تاع لباتوين كان هيا أيوها مركا ميت كدعية هدي ميل عاد انت تكتان إدوكو وضع السعودة ay markaa ama gaarigaba idinka xumaado sidii wuxuu u shaqeyn jiray ninka garashweey oo kale ah sheekh iyo waxa iska dhigi jiray isaga la gelaya sharafada qaadanaya ma garatay waxaan xasuustaa maalmo gaari baa naga xumaado markaas sidii anaa lugeynaya oo gaari waxaan doonayaa isaga dhin kale ayay adinku sii jooga adiga darawalku taqriiban ilaa 30 kilomitir 40 kilomitir meel loo jirta wuxuu rabaa isagu inuu yani arinta fuliyo ma garatay marka bimacna alkalima wuxuu ahaa nin macnaha yani waxyaalaha naftu jeceshahay ee hadiya jira bini'aadamku jecel yahay ama xub shuhra ha noqoto ama mansab ha noqoto ama ha noqoto isagoo awood u leh wax walba inuu qabto ayuu haddana naftiisa yani dhulka dhigi jiray tawaadu mararka qaarkood dadku marka ay sheekh Ismaaciil raadinayaan waxay eegayeen de qof kale oo nooc kale ah oo maaragtay marka la sheekh Ismaaciil meey waxa weey qof kale raadinayaan markay arkaan isagoo dhulka iska fadhiya ama ay maaragtay
macnaha Sheekh Ismaaciil inta dalka laga yaqaano iyo inta caalamku yaqaano ayaa badnaa yani culimada wuxuu kaga duwanaa caalamka ayaa laga yaqaan sida yani culimada Soomaaliyeed qaar caalamka looga yaqaano ayuu macnaha local lama ahayn caalamka laga yaqaan marka wadan kasto uu tago marka aad meelaha qaar tagto wadamada qaar marka aad yani nidaam dacwi aad ku tagto su'aasha ugu horeeyay ku weydiinaya waxa weeye Sheekh Ismaaciil ma taqaanaa Sheekh Ismaaciil ma garanaysaa anta taariif waan la baxay waan la socday waan la safray saasuu ahaa caynkaasuu ahaa bay kuleeyeen gacantiisa gaadhay wallahi nin wanaagsan buu ahaa saasuu ahaa uu ikraamay uu ila fadhiistay uu inasteexiyay magarat waxa ahaa nin tacliinta diiniga ay ku weyntahay tacliinta diiniga inuu kor u qaado ahamiyadeeda anagu markii yani waxyaalaha uu ka fikiray waxa kamid ahaa in jaamacad la sameeyo in macaahid la sameeyo in la sameeyo maxaan ku dhahaye tuulooyinka tuulo kasta uu rabaa inuu macallin dhigo tuulo kasta uu tago cilaalka waa in macallin la geeyo macallinkii buu geynaya isaga ka fikiraya isaga bishaarkiisa ka fikiraya oo leh war ninka bishaarkiisa magaaladii buu la hadlaya oo leeyahay ninka macallinka wixiisa la siiyo dadkii magaalada deganaa buu la hadlaya magarat halka masaajid baa u baahantay masaajid ha laga dhiso waxyaalo Sheekh Ismaaciil qabtay wax la koobi kara maaha wax yani qof waliba uu dareemayo qof kasta oo garanaya ama gacan buu ku leeyahay ama nasteexu ku lahaa ama uu la fadhiistay ama uu nasteexiyay ama waxba uu sheegay macnaha waxa weeye nin walba oo maaragtay garanaya waxyaalo aad ka u jeclaana waxa kamid ah xajka iyo umrada waad aragtay umrada iyo marka iyo xajka yani waa lagu daalaa qofku markuu xajka iyo umrada sameeyo markaas tiraaho dee waaba la daalo waa la jiifaa ayuu oranayaa amikana umro kale inuu gelinaa hamigiisii dacwadeed isaga horta wuxuu waxyaalo ku hamiyey wali waxba kama dhawa yani waa ka gaari waxbuu ka gaari sheekhu waxba ka bilaabmay laakiin siduu doonayay isagu yani hadee xagga madaarista hadday noqoto isagu uma fikirayn intan yani ama Soomaaliland oo kaliya ama Soomaaliya oo kaliya uma fikirayn wuxuu fikirayay Afrika Asia wuxuu fikirayay Mareykan wuxuu fikirayay Yurubta kale wuxuu ahaa nin fikirkiisu ballaaran yahay oo meelaha aan tagno marka aan anagu ama aan wada socon waxyaalahu aadka u tarkiiska u saari jiray waxay ahayd meeshaas in raad lagaga yimaado ma garat in raad lagaga yimaado ayuu ka fikirayay marka isagu wuxuu doonayay in dacwad la helo tacliin la helo dacwad in la helo tacliim la helo oo dadku dacwadna way heleen laakiin tacliim ma helin waa inay tacliin helaan maca dalika waa inay helaan haddana khidma waa maxay ummadda in loo khidmeeyo oo qof waliba qofkan kale wuxuu dhaamo uu taro magarat dadku cibaadaadka ay boqolkiiba boqol noqdaan inay noqdaan xagga cibaadada marka waxyaaluhu ka caawin jiray waxa kamid ah iyadoo salaadii lagu jiro maqaaxiyaan iska furan iyo hoteelada iska furan aad buu la yaabi jiray wuxuu oran jiray arintani waa sidee isagu marka wuxuu ku tamaniyay sideen u helaa yani barnaamij boqolkiiba boqol ah oo ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam halkii uu kaga tegay inay ummaddu ku noqoto ayuu aad uga fikir jiray halkii nabi maxamed kaga tegay ummadda marka waxyaalaha qaar waxba ka dhaqaaqay oo de waa dareemaysaa isagu waxa weeye raadkiisa waxa kamid ah isagu wuxuu beeray dad buu beeray oo meesha ka soo tagto ugu tagayso yani la cadad wala xisaab madaarista tira male jaamacaduhu waa la mid taasoo jaamacadood oo qayb hablood iyo qayb inama leh ayuu ka fikiray uu taasisiyay tuulooyin buu ka sameeyay yani dad buu ka tagay yani dad la taaban karo oo hadal ahayn ayuu ka tagay oo nool buu ka tagay wixiisu macnaha barnaamij ka tagay barnaamij yani kala googo'ay ma aha waa wax aan rajeynayno ilaa qiyaamaha inay shaqeeyaan insha Allah Ismaaciil marka meelaha ijtimaaciyada laga qabtay meelo fara badan baa laga qabtay meel aan ijtimaac laga qaban jirin wadamada kamid oo ijtimaaciyada laga qaban jirin ayuu wuxuu isku dayay inuu isagu ijtimaac ka qabto abaabulo dadkii waxay yiraahdeen war ijtimaacan iyo kulan kala qabanaysaan
yaa mas-uulka ah maanaa waddan macnaha waxa weeye yaa mas-uulka ah hawshan intaasoo boqoloo kun baa isku imanaysa ma aha inteena sida soomaalida oo kale maaha waa afrikadaas ma garatay yani yaa mas-uulka ah hawsha ayaa mas-uulka ah wuxuu sheekhu yidhi intaydan ku qora annagaa mas-uulka ah iyadoo dadka kale ay yar ayuu yidhi annaga nagu qora annaga hawsha qabanayna yani geesinimada intaa leeg waxa qaban karo un qof isku kalsoon ijtimaaci iyo kulankii ilaahay si wanaagsan buu noogu dhameeyey shimbir taabatana ma leh boqolaal kun oo qofna isku yimaadeen maxaba yaa lagu kala tegey yani kalsoonida intaa leeg qofka bixin karaayo waa qof isku kalsoon ilaahayna ku kalsoon ma garatay waxyaalaha xusida mudan ee la yaabka waxaa ka mid ah ninka ugu yar iyo ninka ugu weyn inuu isku si u fikirayo nin baa waxbarashadii ka tegaya wuxuu leeyahay ninkaa meeshuu doonaba ha joogay waa in cid loo diro waa in loo yeedho waa in la soo kaxeeyo waa in halkiisii lagu celiyo marka waxa laga yaaba waalidku inay diidaan oo yidhahaan maye inankaasi waa caynkaasoo isagaa waalidkii u tegayoo kale annaga na sii qaar buu miyiga hoostii ugu tegey markaasaa la yaabo la yidhi sheekha maxaa xilligan keenay ma garatay marka wuxuu ahaa sheekh dhisaya shaksi dhisaya oo ummad dhisaya oo waxyaalihii uu dhisayna oo maanta inoo muuqato inuu arkayno wey raximah llahu tacaala sheekhu raximah llahu tacaala aakhiru xayaatihi adigu yani maalmihii sanawaadkii ugu dambeysay ee xajka anagoo wada joogna ayuu sheekhu i yeedhay wuxuu yidhi halkaa soo jeeda waa halkii aan dacwaddan iyo khayrkan ku qaatay baabu malik fahad meesha ku beegan ee laga soo galo iyo baabulcumra inta u dhaxaysa halkaasaan dacwadda ka fahmay buu yidhi anigu oo fartay ugu fiiqay markaasuu wuxuu dalbay in xajrul aswadka si aan laba badan in xajrul aswadka aan soo taabanna buu yidhi waa intii xanuunadan karoonuhu iyo aanay maaragtay ay dhaceen oon meeshii la xidhin xajrul aswadkii ayaan soo taabanay bisuhuula ilaahay noo fududeeyey annagu cidna riixin jaalis wanaagsan baanu eeganay sheekhii markaa dacwaddii ilaahay halkaa uu ka fahansiiyey arrintiidii waxay noqotay inuu ku soo khatimo ilaahay noloshiisa ugu soo khatimo goobtii lafteedii oo uu ku ducaysan jiray inuu ilaahay ugu soo khatimo intii ka dambeysayna dhaqaaqo halkaa ka dhaqaaqay dee waa lala socdaa meelo badan oo meel aanu soo marin male maraykan buu yurubtuu tegey maraykan buu tegey waxa weeye wuxuu tegey ciraaq wuxuu tegey kuwait wuxuu tegey baxrayn wuxuu tegey jaziirat alcarab oo dhan buu maray afrikadaas meelaha aanu marin waa yar tahay south africuu tegey ma garatay tanzaniyuu tegey kenyuu tegey wuxuu tegey meesha la yaa uganda meel walba dadaalkiisii baa muuqda anu markaa dardaarankan ku dardaarmaya waxa weeye kolley waari maysida wara kaa hadho haddaad macnaha waxa weeyaan qof walba adduunyada uu ka socdaa sheekh ismaaciil shaqadiisii maanta way socotaa waxaanu ahaa nin culimada yani waxyaalaha xusida mudan waxaa ka mid ah nin culimada yani u dhaxeeyo oo nin kastoo culimo ah jecel oo raba halkiisii inuu ku booqdo oo ka warhayo oo waxyaalahan samayn jirna waxaa ka mid ah inuu yidhaaho ina mari sheekh hebel baynu soo booqanaynaa nasdeexa ka soo qaadanayna la soo fadhiisanayna la soo sheekaysanayna waxaa laga yaabaa inaan goor dambe ka nimaado meel kasta meel walba uu tagana ninka sheekha meesha yani meeshaa joog goobtaa jooga ayuu markaasuu weliba ikraam iyo ka warhayn iyo maaragtay uu kaga imanayay markaad xasuusato sheekha waxaad xasuusanaysaa khayru nnaasi anfacuhum linnaas sheekh waxaan odhan karaa mumayasaadka faaqa can aqraanihi dadka kaga duwanaa waxay ahayd itcaabu ljasad iyo murugta inaanu raaxo marada u golaynin isagoo xanuunsanaya murhaqa aada u daalan haddana asfaar istaba jooga inuu qaadayo oo dee la yaab leh waxyaalaha cajiib kale waxaa ka mid ahaa maaragtay murugta iyo had iyo jeeraale taraa min malaamixi wajhi alxusun lilbashariya inuu ummadda ka murugoodo yani maaha calaa asaasi alaqaaliim iyo beled bal ee wuxuu dadka ku odhan jiray war qofka bini aadamkii yaanu soo dhaafin insaaniyadda haddana islaamnimada haddana shacbiyad haddana dalkiisa ugu yaraan yaanu hoos halkaa usii dhaafin waxyaalaha uu maaragtay gaarka la ahaa waxaa ka mid ahaa lexejeclada
waxyaalaha gaarka uu la siiyaa waxaa ka mid ah ogaalka hoose calaa asaas xataa mustawa maalan dadka muslimiinta shucabta ay ku kala jiraan mid walba halkiisa inuu ku ogaa oo dadka aqoon hoose uu lahaayo mid walba tilmaan waayeel bimathaabati alwaalid alxanuun uu ahaa allahu naxariiso sheekha waxyaalaha la yaabka isaga iyo sheekhii kale cabdilqaadir insha allahu ay gaarka u ahayn waxaa ka mid ah daakira qawiya jiddan laga yaabo 20 sano ka hor qofkii uu Kenya kula kulmay inuu magaciisii iyo mashhadkii intaba aanu iloobahayn ayay ka mid ahayd insha allahu runtii ma soo koobi karo marka aan tilmaamayana dee ma sawiri karaya laakiin intaan ka xusuusto ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaalaha gaarka uu la sii ahaa sheekhu alxirsu cala almabda inaanu wax gorgortana diin in la faafiyo aanu ka geli jirin waxaa ka mid ahaa yani xub almuminiin والبغض للكفرة والملاحدة هذه جهادك المؤمنين تاينو خير لا جعلا قال نعيب aad baan u xusuusanay arintaas قال نعيب iyo qabyaalad iyo tacasubka iyo qaxoontiga aad buu uga hadli jiray sheekhu aad wada safartaan labada ugu dambeyn labada iyo barka waa taagay masalada qiyaamul leylka aad baan ugu sii xusuusanaa iyo duca dheer oo caama oo la xijeclo ah ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa inuu odhan jiray ilaahu dadka muuminiinta toobadkeen iyo taqyiirul acmaal ilaahay oo ku manayso wixii gaalnimo ku dambeeyana hanuunka ilaahay u fur aad buu ugu celcelin jiray ilaahay oo dantayada la garansiiyey dantayada waa duco imaka anigu waan aad buu isticmaalon kaba bilaababa way ka mid ahayd hadiyo jaraale maaragtay arrintan aadka ugu sii xusuusanaya waxaa ka mid ah joogtaynta iyo awqaadda ilaalinteeda salaada iyo markastoo shir la qabanayo shayga koowaad uu ka bilaabmaya awqaadda salaada inuu xadidi jiray aanu uga jeedo macnaha in salaada awqaadeeda la ilaaliyo ayay ka mid ahayd dikri fara badan iyaan aada u xusuusanahay safar dheer oon wada gallay waan yaro mulaaxadaynayey xuska ilaahay aada iyo aad buu ugu mashquulsanaa runtii qiraa'atu lqur'aanka intaan ka xusuusanahay haleelkiisu ha kuba yaraade laakiin qur'aanka weliba qur'aan mafhuum la socdo wuxuu odhan jiray dadka qaarkoodna waa mufasiriin qaarna waa mutarjimiin marka mafhuumka qur'aanka iyo waxyaalaha la yaab kale ee la aalidee ku jira buu inta badan mafaahiim la yaab leh kala soo bixi jiray jazaaka allahu khayran runtii waalid buu u wada ahaa nin kasta oo geeskan east africaba yani waxaad dareemi kartaa Kenya haddaan wada tagno isaga oday u ah nin walba waa iska fadhiisanay Nairobi aan dhahdo اللهم صل على محمد إيست أفريقيا ودن meel kasta oday buu ahaa waxaa aad u cajiiba inay qolo waliba aanaysanaysin haddii kulan qabanayaan haddii ijtimaac musaqara uu jiro haddii ijtimaac caalamiya uu yahay inaan la-aantii inta badan maaragtay ay dadku aad u jeclaayeen inuu yimaado way ka mid ahayd wuxuu ku suntanaa waxaa kowba ka ah in halkan 80meeyadii wixii ka horreeyey keligii uu ka bilaabay dabadeedna tadriijiyan maanta inta markisay dacwadu leedahay binisbati albalad iyo caalamka oo dhan meel walba gacan u ku lahaa bal qolo waliba ay doonayeen markiska waqfi ama waaqif inuu naadir waqfi inuu ka noqdo isagu ay la jeclaayeen wuxuu aad ugu suntanaa runtii masaarul camal inaanu leexanin buu ku dadaali jiray wuxuu aad iyo aad ugu mashquulsanaan jiray dadka qudamada ee camalka muddada badan bixiyey inaanay maaragtay hagaasin oo had iyo jaraale canaan iyo dhiirigelin buu la daba taagnaan jiray waxaan garanayaa labadii habeenimo annagoo ka soo duulay jidda kombyuutarku wuxuu soo qorayay markaa qaahira waxaan kusii soconnaa istanbul transit baanu ku ahayn allahu naxariis sheekha labadii ayaanu rag qudamaa oo camalka ka yara gaabiyey baanu ka wada tashanayn waa waqti safara oo la daalan yahay oo cumro laga soo baxay waxyaalaha dacwada uu ku suntanaa waxaa ka mid ahaa camalka inaan la dheehin oo waxaan ka wadaa qofku shawaa'ibta inuu camalka ka ilaaliyo al-ikhlaas wal-istikhlaas ikhlaas oo lilaahiya istikhlaas oo hagarbax ayuu had iyo jeeraale maaragtay dadka ku dhiirigelin jiray
waxyaalaha qaarkood waxaan xusuusanahay habeen aan wada fadhiisanay bacda alcishaa ilaa nisfa leyl waxyaalaha ka sheekh ugu yaraan bal usbuuc inaad tacaluqaad badan baa kugu xidhan aada magaalada joogto miyaanay fiicnayn wuxuu igu jawaabay dantaydu imay fadhiisin waan ku xusuusanahay inaanu had iyo jeer mujaamalada camalka in la kor marmaro oo iyadoo la dayacan yahay uu dadka u mujaamaleeyo ma aqoonine mataana boyntiga iyo xubinta iyo waxa meeshaa taagan waa caddayn jiray inta badan xagga wadanka gudihiisa safaro badan ayaan wada gallay waxaan xusuusanahay waxaan ka soo bilaynay safarka boosaaso haddana qardho garoowe xaaji khayr meel la yidhaahdo laascaanood caynaba haddana meesha la yidhaahdo berbera hargeysa jigjiga wajaale ilaa boorami waan xusuusanahay alla bariya galbeed baa idinku taqaaniin waa safar dheer buu ahaa mid walba intaa mudaakaraad iyo tashi ayuu maaragtay waday waxaan aada isii xusuusanahay meelaha qaarkood ayaa waxaan garanayaa aan aada u xusuusanahay safarkii markii uu dheeraaday dadka meel kasta dadka qudamada ah camalka ka yaro gaabiyey ama odayaasha u ah inuu gaar ula fadhiisanayey mawaaqifta waxaa ka mid ahayd anigoo aan magaalada markaa magacaabahayn ayaanu kulan magaaladii markaa u dambeysay ahayd baan filayaa ayaanu kulan baanu ku qabanay marka intii ducaadda ahayd ee camalka usoo qariibtay ayaanu la fadhiisanay marka nin ka midaba hadal yaro culus oo sheekha ka yaro nixiyey ayuu maaragtay ku dhawaaqay dabadeedna yani halkaa waxaan ereygan uga jeedaa waqaaf buu ahaa marka ama lala taliyo ama wax loo sheego dadka qaarkood baa u arkaya nin asertifo oo adadag inuu ahaa ma ahayn saraxatan waa marka waxa loo tilmaamo waa joogsan jiray inta badan marka waxaan xusuusanahay anu markaa dibaddan ka soo galay iyadoo arrintii adag tahay sheekhiina cadhooday intafakad awdaaju baa waxaan ku idhi sheekhow adiga mid baan ku leeyahay sheekhaa kale hadlayowna adigana mid baan ku leeyahay qoladiinan na soo dhoweysayna mid baan idinkana idin leeyahay marka way dhaaftay arrintii tarqiibkee baab odayeyna ayay gashay sheekha waxaan garanaya inaan ku idhi jawaabtaad bixinaysaa jawaab waalid dacwadeed ha noqoto ficlan intuu cadhadii qarsaday ayuu hoos isaga foorarsaday kadibna arrintii waxay ku dhammaatay duco iyo mataqaana maali taqbiilu ayaadi waxaan sii xusuusanay mar kale safar baanu ka wada bilownay meesha la yidhaahdo jigjiga waxaanu tegaynay qabitaar isla etoobiya ah gobolka maaragtay qoraxay marka meel anagoo marayna wardheer agagaarkeedaas ayaa niman ciidana baa na baadhay baabuurkii baa nala joojiyey marka aniga warqad yaroo ay wax ku qorqoran yihiin dahabshiil iyo wax noocaasa ayaa kitaaban akhriyay qur-aana baa laga soo dhex saaray dabeetana niman iska reermiyey bay ahaayeen haddana askara xoogay ishkaal bay yaro keentay sheekhu markaa indhuhu ka galayoo allahu naxariisay dakhal jana oo nala socday yacni jur'ada iyo khawfulmakhluuq oo qalbigiisa ka baxay iyo haybadda cidna aanu ka haybaysanayn baan arkayey mawaaqifta waxaa sii xusuusanahay nidaamkii cabdi ilay markii uu ka jiray wadanka ayaa dad badan baa xidhnaa dabadeetana intuu baabuur soo kaxaystay ayuu jeelka laftiisii galay sheekhu dhowr iyo 80 qof ayaa ilahay sababtiisa kusoo daayey waa mowqif aada u layaab badan buu ahaa si xusuusay isaga ayaa sheekhu u tegey ninkaa cabdi ilay laftiisa ayuu u tegey tana hadal buu ku yidhi waa ragaad baa ku haye ragaadka makaa saarna waa nin dhanoo madaxoo dadku ay ka haybeysanayaan fadal buu yidhi wuxuu yidhi dadkan soo daa xidhan dabadeedna furihii buu qaatay baabuur qabaala isagaaba kaxeeye sheekhu darawalna arrintaa uu ku ahaa aada buu mataana u yaqaanay dabeetana jeelkii markii uu soo galay dadkii waa u kala baneeyeen dhowr 82 qof taqriiban ayaa isaga sababtiisii ilaahay kusoo daayay bal sheekh cabdirashiid cali suufi mataana daamat barakaatu ayaa soo hadlay oo yidhi anna nin baa igaga jira sheega buu yidhi ninkaad sheegayso marka mawaaqiftaan sii xusuusanay bay ka mid ahayd
hindiya oo kale markii aanu tagnay Hyderabad iyo Delhi iyo dhulkaas masjid niman badan oo odayaal oo qudame ay joogaan carab wuxuu ku hadli jiray sheekhu afkan urdoogaana aad buu yaqaanay marka nimankii oo yara qabowsan ayuu la hadlay markaasaa hadalla aad u kulkul niman markaa iska yar qaboobay oo aan hadalkaba lagu kuleelayn baahan markaasaa dabeetana hadalladiisa waxaa ka mid ahaa aage kaliye biija naye macnaheedu waxa weeye hore u socda camalka oo dib ha u noqonina way wada baraarugeen fikirkiisa horta caali ahaa hadalladiisa waxaa ka mid ahaan jirtay bani aadamka ilaahay wuxuu siiyey laba awoodood quwat alfikri wa quwat alcamal marka daa'iman quwat alfikr wa quwat alcamal taabic liquwat alfikr awoodda fikirka iyo awoodda shaqada marka qofku fikirkiisu meeshu yahay bay shaqadiisu ay noqonaysaa dadka wuxuu aad ogala hadli jiray sheekhu yani من المخلوق إلى الخالق من الدنيا إلى الآخرة من الأعمال من الأسباب إلى الأعمال من طريقة اليهود والنصارى إلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير الجهة والوجهة إنه مدة كم بدلوا أيو شيخ آد وفكر كيسو أها يمركتيس يدرين كيسو مركا همي قد دعوة شيخ همي بدن يعاد فبدن بحبار سنة وحد مدة يعني جهد الرسول وحوله جري وكو آد جهد الرسول على نهج الرسول هم الرسول مع بكاء الرسول شفقة الرسول رحمة الرسول كرم الرسول يعني صفات كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أياد ومودة سائنو ديل صفات كالنبي محمد مودة هي لكراه وح بضن أمانة أمده وينها إن إلهي شيخ وكجاء رزقي وحو آد ومروا البابا وشيخ أهم جيسو أها توحيد الفكر إن فكر كلام مذايو توحيد القلوب قلوبته إن لم مذايو توحيد النهج إن لم مذايو هذا اللي هو حكم إذا هنجر وليه شري ليس قوة أقوى بعد قوة الله قوة اجتماعية القلوب أود الله مركز لقي مادو أود مدن ماذا وحكا سرية مجرد تذكر إن مذوض النقضان أيو هذا وجود ذلك شيء وحديه شيء مركز ما شهر أنقص النقض الإنسان بالفكر يتقرب إلى الله بالفكر يبعد عن الله فكر بإله لو قلنا هذا فكر إله ولا جافو هذا مركز وحديه شيء قفك بني آدم كفكر كيسو تذكر وحولي جرك كشقية تذكر فكر كشقية مثل هذا العقبة dadka fikir ka shaqeeya ayaa ka lacag badan marka boqolkiiba dhiigeena bur waa shidaalkii jirka weeye boqolkiiba 60 maskaxda shaqada marka dadka fikirkooda maanta meel kale ayuu ku daadanaya marka dadka fikirkooda inuu qasiil ku sameeyo sheekhu oo fikirkooda aakhira uu noqdo ila nabiga wuxuu dhihi jiray nabiga saddex baa laga danaya yani imaamka oo kale midalan niyat al-imam iyo wajhat al-imam iyo tartiib al-imam marka nabigana saddexaas laga danaya niyadiisu nabiga maxay ahayd يعني نيديسو عالمي بي هيد فكر كيسو محوها عالمي بوها ترتيبتيسو محي هيد انت زكي يا صون يا حج ان لواجب يلين دعوه لواجب يلا يعني قرما يعني لسو وخ marka faradkii ugu horeeyay ilaahay uu dhulka keenay ilaahay subhanahu wa ta'ala anbiyadii ulul azmigiina loo dardaarmay shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuh walladhi waxayna ilaykum ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa ana qiimu ad-din ayaa marka ayay ahayd marka sheekhu lama soo koobi karo wuxuu dhihi jiray himmatul ulya ismullahi al-a'zam ahbaabta maalin waxaan garanayaa asagoo day culimada ka soo xiganayo uu dhihi jiray hadii ilaahay uu inoo yeedhaba hadii ilaahay inoo yeedho maxaan sameyn lahayn buu sheekh weydiiyay areeha soo qaadan jiray marka nin walba wuxuu yiri waxbaan sameyn lahaa anigu sidaan sameyn lahaa jawaabtu waa la garan waayay marka wuxuu sheekhu buurta ugu dheer intaan fuulan oran lahaa ilaahay halkan aan soo gaaray يعني فتقوا الله ما استطعتم وكلا مركو شيخ معنين هيو استداعada wuxuu yiri dadku waxay u haystaan buuri inay waxa loo soo qaataa buuri ruqaskiya ayada inay dadku si kale u fahmaan laakiin intuu ruux joojiyo ayaa wuxuu dhihi jiray lugta midigta kor u qaad hadana ta kale kor u qaad ma qaadi kara qof lugtiisa kor u qaad tii kale ma qaadi karayo marka istidaacadu waa maxay waa meesha ugu dambaysa inaad gaarsiiso juhdigii marka mar walbaba in ahbaabtu ay waxba la kala hadhin dacwadani ay tahay umul xasanaad ayuu aad dadka uga dhaadhicin jiray maxaa yeelay dacwadu ayada wax la wixii wanaagsan oo dhan al-kaafir yuslim gaalkiiba soo islaami taa caasigiiba toobad keenaya daliilkiiba aziiz noqon haya jaahilkiiba wax baran haya marka dadku inay dacwada fahmaan oo tusaalooyinku soo qaadan jiray waxa kamid aha sheekhu wuxuu hadalkiisa kamid ahayd nin baa beer buu aad u fali jiray beerta habeenii maalin buu ka shaqeyn jiray beerta markii laga shaqeeyo beerta cinab baa ku yaala tufaax baa ku yaala burtuqaal baa ku yaala waxa cinab baa ku yaala beertii baa markaa sidaa u dhalaysa uu dhintay ninkii carruurtiisii baa ka tagtay carruurtu waxay ku mashquushay inay marihii uun ay gurtaan markii beertiina ina ka shaqeeyna marka de zaman kadib beertii waxba ka soo dhaxbaxay
qodaxay yeelatay dhikil baa iyo caws baa ka soo baxay ilaa markii dambe dee war aabaha ay noqdaan uun aabahan markuu joogay beertu sidaas geedkan intaasan ka goosan jiray intaasoo kiilo geedkan intaasoo kiilo waxay fahmi waayeen shaqadii aabahood marka ambiyadu waxaan buuri beer bay ku dadaali jireen salaadan buu yiri waa midho ay dacwadu dhashay waa midhihii dacwada zakadu waa midhihii dacwada xajku waa midhihii dacwada tacliinta dadkan xufaada quraanka waa midhihii dacwada marka asalka hadii la waraabiyo diintii oo dhan baa wada waraabsamaysa ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء marka dadka sidoo sheekhu shucuur المسؤولية ugu dhalin lahaaba yani fikir qof kasto oo la kulmo yani waxaad arkaysaa xadiis nabigu ruux lama kulmo ila dacwadu u bandhigi jiray waliba dacwada infiraadiga sheekhu aad ugu dheereen jiray axbaabtu wuxuu dhihi jiray hadaad xaaje yeelataan soo jawleeya oo jawla qaada oo soo dadka soo dhaxmara dadka qaafiliinta soo dhaxmara masaajidka baraarujiya haddana soo noqo laba ragcadood tuko arrimahaaga ilaahay u bandhig ilaahay ku xidhan ummadana ilaahay ku xidh mushkhayadaadana ilaahay weydiiso subxaanahu wa tacaala marka haddii nin maalan dee sheekhii isagaa meeshii fadhi marka qaarkood waa loo dad baa usoo yar calaacali oo iman haya sheekh hadaliisa waxaa ka mid a wuxuu haya markuu siiyo ayuu dhihi jiray haddana war dee ilaahayna idin barray caalamkiina waa kaase foof taga ayuu sheekh hadaliisa ka mid ahayd oo hala foof tago ilaahay wax laga qaato sida ilaahay wax looga qaato ayuu dadka sheekh Ismaaciil raxmatullaahi calayhi aad u bari jiray marka fikirka sheekha lama soo koobi karo wuxuu dhihi jiray wala fikir kaliya haddana ma ahe infaaq alwaqti walmaal in fikirka haddana nafti iyo maalka meeshaad ka fikiraysa haddana la geliyo haddana taa un kaliya ma ahe ziyaadata ducaa ducana in la raaciyo markaas marka shay walba inta la geliyana midhiisa ayaa la helayaa marka taasa marka ayuu sheekhu dhihi jiray hadallaha uu ka soo xigan jiray culimada ku dhihi jiray waxa kamid ah diinta hagarta ka ilaaliya hambooriga ka ilaaliya habowga ka ilaaliya sunnaha nabiga isku miisaama isku sarjara isku dheerariya cagta u saara yaani dadka hadallaha marka aan dhihi jiray abamiya sheekha yaani bahda ilaahiya beesha rasuulka ugu beera yaani ilaahay dadkii ilaahay noqda weey idinka ilaahay sala marka fikirkiisu sheekha wuxuu ahaa qof walba oo khaasatan qof walba sidoo ilaahay ugu xidhmi lahaa ilaahay ugu tiirsan lahaa ilaahay cabashadiisa ugu gudbin lahaa ilaahay qof walba ugu calaacali lahaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin noloshiisa oo iman lahayd الدين مسؤوليتي وحاجتي ونول بالشعور ونقول لها نائب الفاعل يقوم مقام الفاعل نول ببوسك النبي إنه تاجي هاي هذا ليس وحكم إذا هنجر وحليه جري ومدن إلهي وحسي لبد ذاله مقام الشراكة إن النبي جي النول دعوة إلا وذاجان مركو الإنتان إنه كان حلان مركا وحليه جري ختم النبوة نبي النبضة إن النبي محمد قصة وحده شرف بيناتها لكن جهد ختم النبوة دذلك النبي النبضة إن لحده مصيبة إنه قطها مركا شرفتي أن قاضي إنه دذلك النبي النبضة سوء وحده من أي مرة بوجود ذلك جري دمانتنا وين موقتهايو مال والبابا وحوك شيخه كفي كيري جري سيدي لوجا سمين لها مدارس مساجد لوجا سمين لها قف والبماشي سوكو وجدت كي سواء كلا يقين شيخه قفك اللي حجي على الدينيل قفك إخلاص كلا قفك أغراض يدناها كلا كل حوتها نندتك آدو كلا يقانو نول بماشي صديقة أيها شيخ إسماعيل رحمة الله عليه مواقفتي سو حكم إذا شيخ مد حق التواضع أيها بعض الكلام على مرنين وحط صالحان مثل حبل الحرير وكلو هايو حريرته يتابشم معانتها لكن لما جوين كرو وحي حق وحق ويأساق وحي دوني هكجوه ريمادان حق ممنا كلا حجر الشيخ إسماعيل رحمة الله عليه ولذلك أساسا يعني حتى تبليغ الحديث مركز لقطه جميع حركات المسلمين يا شيخ وجع عليهم واقفته وحقق هذا هي مرة البابا نين هذا وقلنا صحيحية ما لحظة رنت وشاقة تجارة رنت وشاقة إن مالك هذا الدين تقل نقول بسلاحية إلهي وسية كعلم إنه علم جيس الدين تقشده كمال كلام مال كيس إنه الدين تقشده كود الأود إنه الدين تقشده هذو ملك لقلي نبكة كجاي منها يعني مواقف أذق حق هذا نشريه لما مرين شرين بعد الكشيخ إسماعيل رحمة الله عليه dhacdooyin kan xasuusta waxa kamid ah mar qaar kood inay dawladaha kamid ay tiraahdo ijtimaac loo qaban kara meeshan uma joojin jirin وقفسوما اجتماع بالكالي أود الله ذا كله كوتشي بورنشل أود أدوق الله ذا بالكالي اجتماع كوتشي جماعة ذا كله مثال يعني وحوها قف يعني حق أسوء مركز أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين بوها وحي يعني هذا حق أقول شيء لحسن لكن وحي حق أن هين أن لما رين كرهين بوها رحمة الله عليه ما لبضن باكم بذها مرة هذا مثلا شيخ وحنكو ضبحني
junuub afriqiya oo kale aan ku wada baxnay mar South Africa marka aad wuxuu sheekhu nimanka hindidaha ugu naseexayn jiray yani nooc waxa ka dhaxeeya iyaga iyo dadka ajnaasta kale ee madowga meesha jooga yani kala go'naanshaha baa ka dhaxeeya marka runta uu sheegi jiray nimanka inta badan tujaarta ah ee hunuud ahana runta looma sheego laakiin Sheekh Ismaaciil qof walba xaq uu kaga nixin jiray وعوين دعوة تبليغ كلمة على حلا هذه قرآن ودين كويرة دليل شرح كمدا يعني علومتي الشرعية ماركين وأنتي بان يعني هذا حبران تانا شغله كوجو ليسي أنت سو مع حد إنه مقالين كنا كسمعيه بل جامعات ماركين وأنتي ما أنت خريجين تو دم مساجد أي وضحية أيو سمية يودي وكسمية ذلك مرة حقي علومتي الشرعية عندنا دعوتنا ديما قرانت أنت دعوتها وحوا شيخ وحوا كتل ماما عفة اللسان حتى أيضا مالو الباكوي منتقدين تيسي نقدية مالو الدعوة النقدية ومالو البا سو إكرام لها سو دوين لها سو مارق أنت وأنا ما قاعد أنت بدل نقدية أما هالنقدية ما ينقدين يعني دقوا حول عفة اللسان أو دعوته ولا نايك قضيتها ما دعوته بدأ دقنوا ودقن كده dadkii waan wanaagsanaa ama asxaabtii ama rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam de way nagu rabiyeen inaynu ku rabaysnaa tahay marka cifatu lisaan adigoo de wanaaga waanu de dadka aan maaragno anti de waxba aan ciidina ka sheeginin mahma وقفك كلام ama jihaada kale hada isagoo og inay inta naqdiyayaan ama ay wax ka sheegeen hadana halka ugu horeeyay markuu magaalada tagama tuuli tago qofka war culimada la soo maro oo maaragtay aad u karaama insha Allah taala bay dhaqan u laha tagala sheekhu wuxuu dhaqan u laha waxa aan doonayay inaan tilmaamo sifadana yani rasuulkeeni baa laga dayanay sallallahu alayhi wa sallam qurbuhu li kulli nas qof walba wuxuu mooday inuu isaga ugu dhow yahay oo maaragtay anti يعني أرمي سجارة كورايو نسائح سجارة وحدوني ما حتى أرمي سجارة وكلتها ليه وراحوا يندت كنا سجارة أما دليرة جامعتها هذا أما دت كمار قراباتها هذا أما دعادها هذا أما تجارت حتى كحرنا هذا تلوين هذه يقولون نصائح كارة أي مارك أنت أي وراحوا قف بس سجارة يعني الشخص آذو بالله مباشر تانا صفاتنا والله إن شاء الله تعالى مارك أنت ugu dambeeyay sheekhana xasuustaadii markaad sanawaadka dib u dhex qaado dikrayaadkaagii mawaaqif ama dhacdooyin ama sheekooyin ama wax ama aad soo joogtay ama lagu sheegay Sheekh Ismaaciil ku saabsan mar walba xasuusto waxyaalo faniyeed waxay dibada tiro ma laha sheekh waxa kamid ah maalin anagu masaajidkan cali mataan fadhi waxaan jeedaa in Ibrahim Dheere aniga sheekho isaga fadhina nin baa noo yimid markaas assalaamu alaykum sheekh waran marka Mareykan buu ka yimid waxaan doonayay sheekh inaad maaragtay anti markayska kaalay baan islaan markayska maan arag waxaan doonaan tago waxaanu markaas wuxuu yiri ma garanaysaa yarkayagii yar ay walaaleen buu ka sheekeen inankayagii aad berigii aad Mareykan ugu timid ay diskooga ka soo qabatay maanta imaam masjid weeye gabadh wadaadadu guursaday waladeegada diskoobu ka soo qabtay ma garanaysaa anti walaad bay taabatay aniga maanta waa imaam masjid markii hore inuu ha iska ehl Madiina ma xataa xaafid quraan oo laakiin de uu soo lumay laakiin marka sheekhu markuu Mareykan iska dhaaf dhulkeena Mareykan uu ka soo qabtay aniga u taagnaa inuu maaragtay roontii de waxa laga yaabaa inuu ina dhageysan ninkii khiyaartaay maalinta aniga kula sheekh marka dhacdooyin de sheekha laga sheekeeyo xaqiiqatan waxyaalo badan oo yani dacwadiisu meel walba ay gaadho dadka uu de khayrka maaragtay roontii de ولا تاسوا كم يد وحيلا أن تلمامي كر إن شاء الله تعالى الله ونحرس الشيخ يا جزاك الله خيرا شيخ أنتي وصول الرعاية قدام بيسي أنا أقول مركا هنديان قال لي نكوب قال لي هالكاسان كود هذا تشرني شيخ الله ونحرسته الرياضة قدام بيان كل واحد كم ذها شيخ مدبر ذنب بينه مارتي إسكا أقلوين أرضي إذا بتربان إسكا هيني أنا سعفينه والناس ودعي لبيته من كي هبيني ما لهذه تقريبا وسيح حسوسنا هاي halkiiba markaa iiga duceeyay runtii isna cafinay anigaana taadee dalbaayay runtii markii dambe xamar ayaanu sheekha ugu tagnay isagoo aad u sii tamar dareeyay oo markaan dhakhtarka ugu galay baa aad buu markaa wuxuu ku jiray meeshan la yiraahdo cinaaya murakasa ICU daas ku jiray hadal badan ma hadlahayn laakiin tilmaamun buu bixinay uu leeyahay ordo iska tago salaadii way gaadhay saasoo kale adugu tashi badan dabadeed
dadka qaar waxay soo jeediyeen Kenya ha loo qaado maya xaramka ka sii agdhawaado iyo meeluhu ku dardaarmay maqaabir المعابدة أما مقبرة المعابدة المعلى يراهد وهالكا إمك لجو عاصينا وكسر دردار مشايخه مركي دمنا حرمك الحمد لله وكقيب قال لي أنا جو آسكيسي مركي أنا ديارة كده جنيبة وتقني مركا يسوقون هذي كرهين أيوه يسكت دياي بل إنه هذلو إنه نسلامه رجيم مركا عنته وقبسده نسيدين واي أيانا وكمدها قرآن كمركان كو آخرينه ولبا آياتك إن الله لطيف خبير آياتك بشارة مثلا مارتي كور رمية أيانا كرقو قادي إن مركاس حوغي كرقو كعايو بشاري سنين قبديسي runtii markii ilaahay ka manaqaatay rag badan riyooyin bay ku arkeen meesha ilaahay raray inay u khayr badnayd isagoo dardaaran bixinaya kadibna markiiba waxa tashigiisii uu noqday nimankii meydayay ayaa waxay yiraahdeen goorma ayaanu hadii laba ku roon yahay idin qaadayna xaramka idin geynina adigu tashigii dabadeed ragna waa loo cayimay kadib waxa isku beegantay sida in badan aan maqasheen sheekh aad u jeclaa oo maartay juhani sheekhi juhayna ama juhani oo aad ugu raaxaysan jiray qiraa'adiisa ku tukaday shaayigi dadka aragteen ee janaasadiisa joogay ashkaal iyo anwaac bay haay dadkaasi intii uu jasiirada sheekhu ku noqonayay ama tashkiilkiisii koowaadba waxa laga tashkiiliyay meesha la yiraahdo Maka safar dheer oo ilaa sanad ku dhowna dadku may wada ogeyn gadaal baa laga ogaaday sheekhu inuu sanad baxayba marka safar dheer oo galay dabadeed iyo jasiirada oo cumro walba tagi jiray iyo xajka ay dadka isbarteen dadkii aqraantiisa ahaayeen walow dad badan har dhintaane ay ahaayeen waliba janaasadiisa aaskiisa iyaga daftood baa loo joojiyay waxa kamid ahaa in loo doortay cishaa'iga dadkaasi markay dawaamka ka soo baxayaan inay markaa janaasada ka qayb galaan runtii dadka aragteen iyagoo ducaynaya oo yaaya dad carab bay u badnaayeen oo sheekha waytaankiisii hada alfaqid almarhum insha Allah ku ducaynayay nin lama hadal meel silent ya bay ahayd si qurux badan oo la jecel ku jirto ayaa loo sagootiyay dardaaran fara badan oo mid ehelka iyo mid dacwada aan insha Allah waa ka sii tagay waxaan ilaahay ka baryaa inuu ummadda iyo inaga bay nagu anfaco insha Allah sheekhu markii muqdisho uu ku xanuunsaday waati ilaahay fududeeyay in diyaarad gaar lagu qaado diyaarad khaas ah in lagu qaado dabeedna tiijada la geeyay anaguna waa ka daba tagnay markii aanu dhakhtarka ka daba tagnay dhowr maalmood uu joogay sheekhi marka qaybubadii uu ka baxayo in luhu kala qaaday wuxuu arkay isagoo aan dul taaganahay markuu arkay aan dul taaganahay waxa aad iyo aad buu farxay kale waxa ila socday sheekh Umar ayaa ila socday sheekh Ali Umar Reesna waa joogay ahbaab badan baa joogtay Cabdiraxmaan Faarax baa joogay rag oo dhan baa joogay Saciid Sheekh Ismaaciil baa joogay Hamza joogay bin Awf nin la baa joogay marka waxa uu galay aniga iyo sheekh Umar leeyahay Umar Tanzani dabeedna wuxuu sheekhu walaal markuu uu maaragtay saa ugu galay ayuu aad u farxay waanu dhoola cadeeyay dabeedna saasuu yidhi macnaha waxa weeye waynu wada socnaa ilaa halkan waa adigan jooga saasuu ishaaray kadibna ma hadli karayo waraaq buu ii soo qaad waraaqdii baan u soo qaaday iyo qalin wuxuu weydiiyey halkan goorma la keenay meeshan aan jooga wahalkii waxaan ku sheekh halkan waxa weeye waa Jidda Sacuudi Carabiya joogtaa dhakhtarna waad ku jirtaa meeshii Muqdisho laga soo qaaday markaas uu Hargeysa intee lag baan ka maqanahay tii baan u sheegay goortu halkan yimi baan u sheegay inuu halkan joogaan u sheegay inaan la joogno ayaan u sheegay ahbaabtu in rag far badan inay joogaan baan u sheegay ayaan uga warramay sheekhu aad iyo aad buu farxay markaas wuxuu yiri
xadiis buu markaa gacantiisa ku qoray xadiiskaasoo tilmaamaya laa tukrihuu mardaakum cala aطacaami washaraab marka nimankan meesha ka shaqeeya ayaa waxyaalaha qaar ku qasbayay oo lahaa taa isticmaal oo taa isticmaal markuu arkay waktiga yani waxa lagu tilmaami karaa muddo yani biliya dheeraada markuu arkay sida ilaahay u nooleeyay iyo siduu yahay xadiiskaasuu soo xasuustay wuxuu yidhi xadiiska ah meelaha dhakhaatiirtana ha lagu dhajiyo waayo qofka xanuunsanaya ha ku qasbina ayuu xadiisku ahaa macnihiisu ha ku qasbina cuntada kiina xanuunsanaya ha ku qasbina iyo cabitaanka ilaahay baa xaggiisa ka quudiya dhakhaatiirtana meelaha dhakhaatiirtana ha lagu dhajiyo sheekhu markii aan ka tegey maalintii labaad aan kusoo noqonnay saasi leeg waraaq buu ii keen wuxuu yidhi ninka hebel la yidhaaho uu fariin nin markaa aanu saaxiib ahayn oo isaga saaxiib ahaayeen ninkaasuu yidhi fariinta ha gaarsii aan isula soo saamaxno aan isula ducayno kaasuu yidhi aan issaamaxno aan isula ducayno axbaabtoo dhan kadibna sheekhu gacmaha ayuu kor u qaaday aad iyo aad buu duceeyey duca dheer isagoo markaa sariirta jiifo oo ay xaaladduba ku adagtay marka aad baa loo farxay waxaa la yidhi maa sha allah sheekhii waa kaasoo ilaahay subxana wa tacaala adigu ilaahay jala jalaaluhu intii uu meesha joogay isagaana soo fasaxay annaga wuxuu yidhi maadaama intaa maaragtay waxaan rabnaa inaan noqono wuxuu yidhi maadaama ay ragga kale imanayaan idinku noqda oo laabta sidii baan ku laabannay xoogaa markaanu joognay baa tiisii baa ilaahay ka dhigay ilaahay haddana wuxuu i waafajiyey inaan haddana sheekh qabrigii maalintuu dhintay inaan soo baxo oo aan intayo markaa la maydhay oo la diyaariyey aan ugu imaado waxyaalaha xusida mudan qubuurihii oo markii saa maaragtay loo keenay carabiya cajamba ay joogeen ay murugeysnaayeen ay u ducaynayeen yani halkaa waxaad ka fahmaysaa maqaaladii ahayd baynana aljanaa-is sida loogu tukaday iyo sida loogu maaragtay looga qayb galay janaasadiisa iyo sida loo ambabixiyey gurigiisii rasmigaa loo geeyey marka ilahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay subxana wa tacaala u naxariisto اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه horta sheekhu dee ilaahay subxaana wa tacaala horta wuxuu siiyey isagoo 80 jir ah inuu sida 18 jirka u shaqeeyo arrintaana waxaa ugu wacnayd cibaadadii iyo ilaahay xidhnaashaha uu ku xidhnaaba xataa dad badan waxay weydiin jireen sheekhu caruurtiisu hadda way yaryar tahay 25 ilmood miyuu ka tegey war sheekhu caruurtan goormuu dhalay baa dadku inta badan isweydiiyaan marka qaarkood 5 yaryar 6 yaryar baa kusoo galaysa sheekhu wuu maqan yahay inta 24 saacba war waxaan goormuu dhalay dadka qaarkood isweydiinayaan habeenkaas ilaahay barakeynay noloshiisa dhanba horta sheekha barakaysnayd oo ilaahay uu barakeeyay subxaana wa tacaala sheekhu markii muqdisho ku bukooday waan ku booqanay allah yarxamuhu hadallihii uu aad ugu celcelinayay sheekhu markii uu xanuunsanayay waxaa ka mid ah shuurada iyo shukriga iyo midnimada aad loo ilaaliyo dacwada inoo ballanaha saasuu dhihi jiray halkii uu wax ku joojiyay in laga sii wado ayuu sheekhu aad ugu naseexayn jiray nin walba sheekhu intuu la soo hadla habeen waxaan garanayaa anoo jooga jigjiga aan la soo hadlay telefoon malaha hal saac wax ka badan uu sheekhu naseexayin fara badan uu ii jeedinayay qaabkii dacwadii iyo nooca kililka say ooga socon lahayd Ethiopia oo dhan Ethiopia dadkii sabab ku ahaa buu kamid ah Sheekh Ismaaciil meelo badan buu sabab ahaa laakiin ijtimaaciyaha hadda ijtimaaci butaajara ka dhacay ee ugu horeeyay sheekha furay 150 baa ka soo qayb gashay kii ka dambeysay 250 baa ka soo qayb gashay 124 kun oo 4 shuur baxday baa joogta yani Addis Ababa gudaheeda ku nool madrasa weyn oo hadda 2 kun xufaad ay gaadhayaan baa ku nool acmaasha ka socoto dhan wadankaas tujaartoodii waxoodaba Sheekh Ismaaciil fi saxiifada Sheekh Ismaaciil way ayaa ilaahay subxaana wa tacaala marka sheekha anu kulay badhay baan ahay waxba igu soo dhacdhacee nin baa yidhi bal wax ma hayo su-aashun baan ugu roonahay sheekha markii uu tagay jidda daamad baraka raxmatullaahi calayhi adugu muddan sheekha la joogay iska waxooga u ah oo culimada qaarkood iga soo horeeyeen laakiin muddadii ugu dambeysay sheekha ana aad xilabada gelin baan u galahayay hal saac baa sheekha meesha markuu uu ku jiray hal saac oo aroortii ah iyo hal saac oo gelika dambe ah
iyo maalinta jumcaha oo 2 saac iyo badh ay ka dhigeen oo labadii gelin bay isu keeneen marka halka sheekha markaan ugu galay inta badan quraankan ku akhrinay maalintii ugu dambeysay sheekha ilaahay wuxuu waafajiyay inaan suuratul baqara iyo aala imraan iyo yaasiin ko 10 yaasiin meelaha inaan sheekha ku akhriyo markii dambe sheekhu ummadda sidan baan u qabay sidan hadda ay culimada qaar kood u xidhaan maadaama meeshaan joogno Sacuudiga saasaan u qabay saas uu yiri sheekhu uu ishaaray inaan yaani duubka xidho yaani waxaad ka dareemaysaa Umar bin Khattab radiyallahu anhu markuu sii dhiman hayay nin dhalinyaraha u soo galay marka mawaaqiftiisii buu ka sheekeynayay ma dhukira al-adl illa wa dhukira Umar cadaalada lama soo xasuusan illa Umar baa la soo xasuusanayay nabiga kaleey sallallahu aakhir salaati yaani markii uu Umar bin Khattab marka wuxuu lahaa dhalinyarada markuu ninka dhalinyarada markuu u soo galay uu ka sheekayay sifaadkiisii waad fiican tahay buu laakiin kor u qaado sarwaalka kor u qaad dacwo bixinay nabigu markuu sii dhimanay salaada waa malakada iimaanukum sheekh Ismaaciil markuu sii dhimanay dacwo bixinay yaani duubka xidho waa dacwo ducee waa dacwo waxa sheekha aayadaha barkood markaad ku aqrinayso yaani aayadihii ruqyada markaan sheekha aan ku aqrinayno oo kale inna lil aayadaha barkood inna lil muttaqiina mafazan marka tiraaho saa'intu jirka isu galiyo horan ya ku soo celi faman amana wa aslaha fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيضا كرو إن شاء الله مركلا شيء دوناي حق حسنك يا إحسانك كهلا يو أذو فربنا أيوة مركي شيخ الله صاح هذا القاذبة وحوله ساس ورنا هي كسر علب وفورنا هي مركز دم شيخ وقعنته يسوق قبتي ودويي الله يرحمه waxaad ka dareemaysaa marka jacayl fara badan oo dadka ahbaabta qofka u soo galaba inuu sheekhu ku dhagdhago oo jecel yahay inuu wuxuu dardaarmo doonayo xurqadii ku jirtay asaga iyo fikirkii ku jiray iyo murugtii ku jirtay iyo dareenkii iyo laxawgii diineed iyo murugtii diineed inuu kugu wareejiyo uu doonayo oo kale hadalhiisa waxa kamid ahaan jiray 100 sano ka hor ma inaan jirin 100 sano kadibna jiri mayno wuxuu aad ugu celcelinayo u dhihi jiray kitaabkaaga nin walba ilaa iqra kitaabka la waran doonaaye kitaabkaaga wax ku murug galiya ha iskaga qorin maalinta qiyaamaha kitaabka wax ku murug galiya ha iskaga qorin marka wuxuu ii sheegay marka sheekha duca dheer buu markii dambe ducay ugu yiri asaguna aamiin buu lahaa ducaadu dheero maalin jumcaana way ahayd marka waan ka soo baxay sheekha ana ugu dambeeyay aan u maleynayo ahbaabta waxa dibadda nagu sugahayay ina Saciid oo khayr Allah siiye duca badan sheekha kala haday iyo Abu Bakar wiilkiisii oo asaguna mawli saabaha Hamza oo asaguna mawli saabka aha labada sheekha u khadmeynaysay Ibn Auf iyo Maxamed Yare iyo culimo kalaba Cabdiraxmaan bin Cabdiraxmaan Xaaji Cabdiraxmaan Faarax Xarbi iyo dibadda marka ay anigu sugayeen oo anay sugayeen maadaama aniga dhahan quraan ku akhri inaan soo baxo marka wii diiday sheekhu inaan baxo gacantu marba markaan baxis dhahaba gacantu igu dhagaya waa dareen oo marka uu dareemayo waxbuu doonaya wuxuu yiri marka qalin iyo kan buu igu yiri sheekhu inuu wax qoru doonayay marka qasiil al-kilaba sheekh lagu sameeyay ninkii misriga haba yiri waxba hadda hawdhiima gabadhii way soo dhiibtay qalinka warqadii aan raadinayay buu iska daa hadda waxba marka maana waxba ka qorin laakiin uun nooca dardaaranka ah iyo dareen iyo hadalkiisa mar walbaba la ilaaha carabka sheekhu ma istaageen asagoo carabku qalalan yahay oo tuubooyin ay ku jiraan haddana 24 saac mutiic dhaakira ayuu ahaa yani ilaahay buu ku celcelinayay nimankii hatta markii sheekhu wuxuu ii sheegay ninkii misriga ahaa sheekh Cabdiraxmaan wax yar kadib sheekhu kaama dambeeynin buu igu yiri nimankii meesha joogay intay hubsan hayeen bay aroortii nooga dhibeen laakiin anigu waxaan ku rajaweynahay oo yaani aan u maleynayaa maalin casar qubayl maghrib jumca inuu sheekhu marka uu naf baxay kadibna aroortii waxa arinta iska mustaxiilka ayadan aha ee Sacuudiga ka ah mustaxiilka waxa weeye ruux jidda ku dhintay in maka loo qaaday qabla xaadithada al-haram xaadithada haramkii dhacday kadib waxaan ka yaabay marka Sacuudiga waxyaalahan aad ugu farxay kamid ahayd oo fikra anigu sayid u cinaayo siin hayaan qaabka u dhaqeen sheekha xadiistii anigu dadkii sheekha la dhaqaayay ma ku jiray afar baan ahayn xadiistii qusulka ku soo aroorto dhan baan sii diyaarsaday hal xadiis meena khilaafin ma dakaatira ah oo meelaha diyaarsadeen sheekha cawradiisa ma arkaysid hadii aad si walba anagu afara si walba hadad lowgiisa halka qaab wax rogrogahay kaalima waxba la qalab ay ugu tala galeen baa saa u rogrogaay isleedahay war meesha ma malaa'ig baa ka shaqeynaysa sheekhi intii wuxuu cadarkii xadiistii oo ku soo arooray markii dambe duub xidheen baabana sida armuu dhahay in alxamdulillah nahmaduhu يعني شيخ ماشي يعني نورك كبحي كدبنا يعني شيخ رحمة الله عليه بعد العشاء
waxay ahayd inaan 4 qof uun kula gallo oo meesha lagu tukado ee halka 4 qof bay u ogolaadaan laakiin ummadii ilaahay oo dhan baa wada jeeday booliskii iyo dadkii xaramka ilaalinayay oo dhan ilaa 1700 baan meesha ku galay ay ka yaabeen sheekha oo dhihi jiray Juhani taraawixda markuu ku daba tukado sheekhu wuxuu dhihi jiray ninka ma dareemo yaani salaadiisa ayaa marka intuu noo soo fiiriyo na salaamay ayuu marka ka yaabay dadka meesha jira oo asagii baa ku tukaday oo sheekhu jeclaa mar walba salaadiisa oo jeclaaba asagii baa ku tukaday kadibna maashi maqbaradii marka nimid Khadija radiyallahu anha waxaan ugu nimid ummad khalqun salaasil min albashar meel alla meel sheekhi la mariyo hada marka qaarkood sheekh Abdul Wahhab la dhaho oo amiirka Pakistan ah jiray oo markii meel la mariyay wala waay Lahore laga soo bilaabo ilaa Reewan hatta ilaa Islamabad markii dambe helicopter baa sheekha soo qaaday yaani qofku markuu dadaalo raadkiisa darkaysa dad ayagoo nool markay dhinteen nool dad ayagoo nool dhintay markay dhinteen laba koor dhintay waa dadka awaamirta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaa sheekhi meel alla meel aanu marino markii dambe dadkiina laga kala hago qabriga sheekha cinda sheekhu waxaad moodaysay marka ilaan hadda waxa kamid ah ducaada sifaadkooda dadka muuminiinta ee amalka wada inay jawla qaadaan haddana ay jawladii soo gabagabeeyaan waxaad moodaysay meesha sheekhu jawlada uu ka bilaabay inuu jawladii ku soo xidhay Ilaahayna qabrigiisa uu ka dhigay ya mar walba wuxuu dhihi jiray anuu aan ka maqlay ninka intuu xaramka yimaado qabuurul macalla Khadija aan booqanin muxuu ka yimid meesha يعني iyo saalix buurtii yani iyo imaaradii weyneed marka ayadana ay meesha oo dhihi jiray sheekhu hatta sayidka halkana laga dareebo yugu anu saas yugu yiri halkana laga dareebo yugu yiri marka aad nin saasu Ilaahay ugu soo xidhayo yani hakada sidaas buu dhimashadiisina Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay aan uga rajaynayna husn al khatima yakuu Ilaahay yiri saabiquuna أولئك المقربون يكون إلهي والسابقون الأولون من المهاجرين والذين تبعوهم بإحسان مركي ضدك إحسان كرة عي مهاجرين أنصار إنه كم إذا هاون إلهي وقر جينا شيخ إسماعيل راتكي سنة الله بركة إلهي سبحانه وتعالى هون حريستو شيخ إسماعيل محمود عقال أمير كي جماعة تبليغة وحوقت كيسي هي مال كيسي هي نولشي سي بوفري فافين تدعوة الإسلام كا إساقا هي علماء دي كلا إيشيت كاسي دير kala shaqaysay ummadda Soomaaliyeedna soo gaarsiisay diinta iyo dhaqanka suuban waxaynu Ilaahay uga baryeynaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannooyinkiisa uu ku casuumo